la xiriidha nin dhalinyara oo dalalka carabta ka yimid soo garan maysid Mareykan buu imanayay marka markuu Mareykan arday ahaan buu imanayay طبعا markuu soo socday khidad baa madaxa ugu jirtay waxbuu soo samaystay waxbuu soo hindisay hindisi maxaa kamid ahaa Mareykan waxa ugu tagaysaa de waa bilad al-lahw wal-la'ib bilad al-banat bilad al-khamr waxa soo dhan waxa weeyaan waad baashaalaysa hablahaas kala baashaali naad kilaabis baa tagi doonta khamr baad cabi xashad baad cabi waxa soo dhistay markuu Mareykan yimid ayaa waxa dhacay gurigiisii apartment ayuu kreystay oo arday jaamacadii soo sajilay deetana ilaan jaamacadii uu imanay shaqooyinkiisii kala ayuu bilaabay habeenkii ugu horeysay uu tagay night club waa taqaanaan Mareykan waa nolol maajina weeyaan waa nolol waxadaara maadiya si Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala khaawiya min al-qiima ar-ruuhiyya wa huduud ma laha night club uu tagay halkii sidoo u dhaansaayay iska ilaalinay khamriga cab misaha cabin waa shaytaanka weeyaan xaajiskaasi macsiyada ka ilaalinay markaad jabiso markaas ugu darantay hablihii dhaansaayay ayuu fiirfiiriyay ilaa waa nin arrin Mareykan u yimide wuxuu yiri caaw Soomaha caawta ugu quruxda badan night club-kaasi waa inaad ku raacday weeyaan oo gacanta qabsato ishiisa waxa ku dhacday inaan malaamixdeedu ay yihiin maxay malaamix carabiyad oo eeg buu arkay laakiin aad u qurux badan markuu saa u eegay bay iyaduna ayuu arkay iyadoo soo eegaysa iyaduna waxa uu gartay inuu wiilkan dhalinyartii oo Carabi yahay markay wada hadleen baa waxa ugu soo horreysay xaggad Carabiyeed baan ahay soo aad u farxay laakiin waxa uu xigsiisay laakiin waxaan ahay nasraaniyad baan ahay baytay kristaan baan ahay baytay kristaan aad buu wax xumaaday inay raacdo ayuu weydiistay waxa ku tiri may kuma raacayo shuruud baan hayaa shuruudeeda haddaad ka soo baxdo waa saaxiibana laakiin shuruudaha hadaan ka soo bixin saaxiibi mayno maalin dambe ay la soo hadashay waan inaan ku arkaan doonayaa soo imaad dooneen way sarkeen waxay sidaa macatab cross saliib ay sidaa weyn saliib macatabkii bay ku tiri crosskii haddaa doonisid inaan iska siiyo waxaan ka rabaa inaad macatabkaad xirato taraddada kasiiran sheekadana mid kugu daray magaciisa Maxamed buu ahaa way hadhow baa inuu wax ka sheegi doona magaciisa Maxamed buu ahaa miyaan xidhaa ma xidho miyaan xidhaa war jacaylka wax walba ka weyn alxubbu yacmi somaha jacaylkii baa indha tiray saliibkii buu xidhay iraac may ku raaci ma sharti kale ayaan leey waxoogaa bay socdeen haddana maalin kale ayuu yeedhay say ku tiri wari ay dhegeysa bay tiri haddaad doonayso inaan saaxiibadaan noqdo kristaan baan ahay inaad kristaan noqotaan doonayaa bay tiri culays ay ku noqotay laakiin waa maxay qofku markuu albaabka sharka isku furo uu ku dhacaya in badan buu ka taraduday oo uu ku noqday arrinkii laakiin akhiran tanassar inta kumay joogine waxa tiri kaniisadaadii raacaysa markuu albaabkii kaniisadii weynaa markuu sidaa uga galay uu dhax fariistay ayaa waxa ku soo baxay wuxuu ahaan jiray iyo meeshuu ka yimid halkii buu ka soo baxay uu soo rooray apartmentkiisii buu ku soo noqday wuxuu xusuustay inuu magaciisu Maxamed ahaa wuxuu xusuustay aabihii markuu salaada subax u kicin jiray wuxuu xusuustay awowgii oo gacanta haya oo masaajidka geynaya wuxuu xusuustay musxafkii quraanka ahaa ee isagoo yaro dhalinyara uu quraanka ka barin jiray wuxuu xusuustay hooyadii oo markuu guriga soo galaba ku leh yaa waladi Allah yahdiik yaa waladi Allah yahdiik yaa waladi Allah yahdiik inankaygu Ilaahay ku hanuuniyo inankaygu Ilaahay ku hanuuniyo inankaygu Ilaahay ku hanuuniyo wuxuu go'aansaday inuu qalad weyn ku dhacay
inuu toobad keeno ayuu doonay laakiin shaydaankii baa la hadlay oo waswaasinaya oo ku leh it's too late xagu ilaahay toobad kaaga aqbali adoo maxamedaad koros xidhatay adoo maxamedaad khamri cabtay adoo maxamedaad naag xaaraan ka aad raacday adoo magacaagu maxamed yahay baad kristaan noqotay ood kaniisad gashay laakiin kaana rajulan nin buu ahaa rumaysan inuu isbedel samayn karo oo noloshiisana uu bedeli karo jaamacadii buu kansal gareeyay gurigii uu ka baxay one way ticket buu dalkiisu goostay dalkiisu ku noqday airborg markuu ka tagay ee gurigii uu tagay ayaa rama nafsa fi xidni ummihi hooyadii dhabtiisii isku tuuray soo hooyadii buu hagareeyay isagoo ooya hooyadii aanay garanay limaada yabki why he is crying muxuu la ooya hooyadii waxa dareentay laakiin in maxamed noloshiisii ay isbedeshay min masjidin ila masjid min khayrin ila khayr min amalin salih ila amalin salih masaajid buu ka baxaya masaajid kale ayuu tagayaa daris buu dhageysanaya daris kale uu dhaafaya waxa uu soo gashaa habeenkii isagoo habeenkii u taagan tahajjud ama sujuudsan habeenada kamida ee sidii caadada ahayd ay istirso eeg maxamed waxaad aragtay maxamedo sujuudsan ya maxamed ya waladi ya maxamed ya waladi ma yajib umu jawaabin way shakiday walaale caruurteedii kale ayay u yeedhay atiri kale eega inankii walaalkiin kale eega ma hadlaayo inamadeedii mid kamida ayaa intu ku soo dhawaaday ayaa nadara ila akhihi walaalkii buu fiiriyay isagoo sujuudsan laakiin wuxuu arkay in walaalkii ay nafti ka baxday ya ummi waladak maat hooyoy inankaagu u dhintay hooyadii markay maqsinka qolka markay soo gashay habeenkaasi waxay ka urisay carfi aan adduunyada lagu aqoon oo aad u udgoon oo meel kale talo ka yimid maxamed waxa weeyaan meeshuu joogay inuu gaaloobay oo macatab xidhay oo khamri cabay oo kaniisad galay markuu rumaystay inuu isbedel samayn karaayo isbedelkaasina uu ku samayn karo an yatuuba ila allah inuu ilaahay u toobad keeno nihaayadiisi waxay noqotay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala an yaqbida ruuha wa huwa saajid fi dhulmati al-layl qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh